koox wada socotaa bulli karaysa ilmahaagu cunto ma cuni karo gaajoon meesha cuntada ay u doonanayeen safka loo geliyay goobtaas way meesha lagu bulli karay u fiirso adigu noloshaada iska wada ilmaha madis diintooda dhaawacaysa shakhsiyadooda dhaawacaysa muuqaalka jirkooda dhaawacaysa qaabkii u hadlaan dhaawacaysa liana ilmo waxaa jira shigshiga oo ilaahay saa u gartay midabkooda dhaawici kara ilmo waxaa jira kadaradu waa kala duwan yihiin muuqaalkooda markaan leeyahay ilmo waxaa jira ku dhalan kara qaab curyaannimo ah waxaasoo dhan waa dhaawac aan ka harino qalbiga gaaraya waalid ilmahan aad iskuulka u dirto waxa ku dhici kara miyaad og tahay gabadha yar eed khamaarka u xidhay quruxda badan ee muslimadda ee Soomaaliyeed eed iskuulka u dirtay eed mustaqbalkeeda dhisayso aqoon ma u leedahay dhibka ku dhici kara ee dhaawici kara diinteeda dadnimadeeda fayaqabka maskaxdeeda iyo horumarkeeda intaba burburin kara wiilka yar eed rabto baritool inuu qof mas'uul noqdo iskuulka u dirayso dhibka iskuulka kaga soo gudboonaan kara ama meelaha uu ka shaqeeyo aqoon ma u leedahay arrinkan ka hadlayno waxa la yiraahdaa bullying waa barnaamij ay muhiim tahay waalid walba oo ilmo iskuul u tago inuu aqoon yeesho waxaana idin soo gudbinaya channelka Walid Legacy intaanan gelin waxaan idin codsanaynaa channelkan inaad subscribe dhahdaan macluumaadkana dadka muslimiinta la بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بولينج مركان لين هاي لقد دينا أف صوماليا معنيال كلا دوان أيو ليهاي أجا تشغلين لو أجا تشغلين أيو إلمها دانسي لا دانسان أيو إلمها هروسي لا هروسان أيو إلمها بيقسي أما عبسي قلين لغو سامين أيو إلمها ياكو سامين أيو شخصي أما كوح أما النظام سيستم أو دجيسان مراركا قاركو دوحوغا إيمان كاراقوث مسؤولة أما معلم بركة iskuulkaas noocyo badan buu qaybsamaa physical bullying oo ah ilmaha in gacan loola verbal bullying oo ah in afka wax laga yiraahdo cyber bullying oo ah ilmahan sawir laga qaaday isagoon raali ka ahayn diyaarna u ahayn in qaab khaldan oo isaga lagu dibin daabiyeenayo loo isticmaalo mid walba tusaale kooban aan ka bixino waxaanse ka horreysiinaynaa ahmiyadda uu leeyahay mowduucan in laga hadlo oo channelkan Walid Legacy aan u soo gelinay muxuu yahay waalid waxaan ogaanay bullyingka ilmaha lagu sameeyo iyagoo 5 jira ama 6 jira ama 7 jira wuxuu daba socdaa daraasaadku say tilmaamayaan ilaa 50 jir ay gaaraan waraysyada aan aragnay iyo xogahan soo ururinay waxaad arkaysaa waalidow ilmo 6 jir iyo 7 jir lagu bulli gareeyay iskuulka oo 50 sano markay gaareen kadib qoraallo ay sameeyeen ama data laga soo qaaday ama waraysiyo ay bixiyeen sheegaya wali inuu daba socdo waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah xaruntu kuma sheegayaan kamana hadlayaan waa sababta keentay inaan kula hadalno mar inaan channelkan u sameeyno waayo ilmuhu ma sheegaan marka iskuulka lagu bulli garay sida darteed qeexida bullyingku waxa weeyaan waalidow daandaansi aga jugleyn cabsi gelin dhulmi noocyo kala duwan leh oo ilmahanan iskuulka u diray in khamaarka u xidhnay iyo wiilkanan u dirneen sabtida hadda quraanka geenin diinta barro in ka sugayno mustaqbalkoodu inuu kaco lagu burburin karo physical bullying waxa weeye in la tikhaantixiyo waxa weeye gabadha xijaabka in laga jiido waxa weeye ilmaha yara buran caloosha saa looga riixo waxa uu noqon karaa candhuuf in lagu tufo waa wax marka muddo soconaya verbal bullying wuxuu noqon karaa in ilmaha kelmad diintooda dhaawacaysa shakhsiyadooda dhaawacaysa muuqaalka jirkooda dhaawacaysa qaabkii u hadlaan dhaawacaysa liana ilmo waxaa jira shigshiga oo ilaahay saa u gartay midabkooda dhaawici kara ilmo waxaa jira kadaradu waa kala duwan yihiin muuqaalkooda markaan leeyahay ilmo waxaa jira ku dhalan kara qaab curyaannimo ah waxaasoo dhan waa dhaawac aan ka harino qalbiga gaaraya cyber bullying wuxuu noqon karaa mararka qaarkood waxaan aragnay ilmo musqusha ku jiro laga yaabo inuu kaadiyo wax u galay bay waxay ka qaadayaan sawir waa la isku dirdiray ilmi wax ma baran bullyingka qeexidiisu intaasaa nagaga filan waxaan rabaa marka waalido bullyingka aan ka hadlayo ee ilmahaaga burburin kara mustaqbalkooda ee diintooda dhaawici kara waanan aragnay dad diintooda dhaawacay ee fayaqabka maskaxdooda dhaawici kara depressionka iyo stresska keeni kara mararka qaarkoodna isdilka keeni kara nacam isdil ayuu wuxuu keenay qoys afgaani ah Afghanistan ka yimid oo wadankan Mareykanka nala noolaa arrimahaas aan arkay
janaalkeena maxaad ku garan kartaa ilan kuma sheegayaan caruurtu waxay aaminsan yihiin wax la yidhaahdo haddaad waalidkaa u sheegto wax iskuulka lagugu sameeyey waxaa tahay maamas boy ciyaal maamo mararka qaarkood waxay aaminsan wax la yidhaha snitches get stitches oo ah qofka hadla dhib kalea loo sii geysan iyo wax lamida waxba kuma sheegayaan marka calaamadahan ayaan kula wadaagayaa waalid si aad u garato ilmahaagan bullying inuu ku socdo waxaan mar labaad ku xusuusinayaa waalid muuqaaladan saad u hesho fadlan subscribe channelkan waa midda koowaad ilmaha markuu kuu yimaado iskuulka ka yimaado wuu gaajoonayaa wuxuu ku leeyahay mommy is there a food fridge ku furaya daddy is there a food fridge ku furaya ama markaad soo kaxayso wuxuu ku leeyahay daddy can we go to the McDonald mommy can we get pizza iskuulka waxba kamaanay cunin waayo meesha cuntada ay u doonanayeen safka loo galayay goobtaas weeye meesha lagu bulli gareeyo koox wada socotaa bulli garaysa ilmahaagu cunto ma cuni karo wuu gaajoonaya u fiirso adigu noloshaadaad iska wadataa ilmahanaad geeseed soo qaado sanado badan waxaasaa ku socda calaamadaa garo waalid hadduu ilmuhu markuu soo galo yidhaahdo daddy mommy cuntaan raba fridge ku orto iskuulka waxba kama cun waxaa ka mid a markay soo galaan oh my god I need to go to the restroom I need to go to the restroom soo sheeko cararayaan waayo meelaha bullinku ka socdo ee carruurteena lagu sameeyo waxaa ka mid a uguba horraysa musqulaha iyo meelaha calaamada labaadna waalid oo fiiri waa calaamad ku tusaysa ilmahaagani bulling inuu ku socdo calaamada saddexaad in waalid kuu sheegay waxa weeyaan aroortii markay soo kacaan jiray isku ridayaan way cagajiidayaan waa lazy ma raba iskuul inuu aado why waxaa uga horreeya qofkii bulli garaynaya waxaa uga horreeya kooxdii bulli garaynaysay waalid waxaa uga horreeya systemkii bulli garaynaya idan ilmo argagax ku jiro yaad leedahay maydho cadayo dhaqso waan kaa dahay iskuulkan aadaynaa calaamadaa isha eeg waxaa ka reeban haddii calaamadaha xanuunka ay leeyihiin xumad matag shuban waad garan kartaa adaa ilmaha dhale intaa haddaanay jirin ilmahan waalid waxaa ku socda bullin baa ku socda calaamadaha kale lagu garto waalid waxaa ka mid a markuu ilmuhu bullinka ku bilowdo ilmihiiyo waxbarashada jeclaa oo fariid ahaa gabadhaada waxbarashada ku fiicneed wiilkaaga waxbarashada ku fiicnaa homeworkii bay samayn jireen way nacayaan waxbarashada homework ma samaynayaan gradeekooda hoos buu dhacayaa readingka science-ka math everything hoos buu dhacayaa calaamadaa waalid ma ku aragtaa ilmaheena bulli baa ku socday ka gaar waxaa ka mid a waalid waxa la yidhaahdo unexplained social isolation isgo'doomin ilmuhu isgo'doominayo oon sabab la'aana oon qeexnayn maxaan uga wadaa ilmuhu hadduu walaalkii la dagaalamo ama yaro edeb darro sameeyo waalidku garaaco ama canaanto wejigiisa uu qarsan karaa wax la gartay ilmahan waa ilmo fariida sidiisa kale u fiican qolka kama soo baxayaan gabadhu qolkay ku jirtaa wiilku qolku ku jiraa habeenkii markaad guriga gasho nalku waa shidan yahay waa damini way fikirayaan bullin baa ku socda way isgo'doominayaan waxaa ka mid a mararka qaarkood maalinkii oo dhan way caajisan yihiin habeenkii hurda ma helayaan cuntadii ay cuni jireen dhadhan uma leh runtii bullinka markaad eegto marka saamaynta fog uu ku keeni karo ilmaha waan ka hadli doonaa qaybaha dambe xalkana waan ka hadli doonaa iyo qaabka looga hortago waxaan ku xijin doonaa diinteennu tilmaamaha ayna siisay waase haddaad janaaladan la socoto weeyaan insha allah inaad la socotaan baan rajaynaynaa waxaan rabaa waalid inaan idhaahdo ilmahan waxaa burburaya mustaqbalkooda shakhsiyadoodaa burburaysa wuxuu ka xishooni qofka magacaa markuu yidhaha maxamed inuu yidhaha wuxuu odhani mom wuxuay ka xishooni inay tiraa khadiija la yidhaha waxay odhani my name is foxy mama ama kay sidaa darteed ilmaha kumana sheegayo mustaqbalkoodiina waa burburaya mararka qaarkoodna waxaa gaaraya dhaawac runtii burburin kara iyagoo dhan shayga la yidhaha identity waalid ama shakhsiyadda waa shay islaamku meel sare gaadhsiiya sidaa darteed ilaahay wuxuu leeyahay waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin qofkanu ilaahay leeyahay yaa ka fiican ee rabbi uu ku faanayo qof waxa weeye tawxiidkii kor u qaadaya islaamnimadii ku faanaya dacwadii dadka ugu yeedhaya wacamila saalixan dhaqan wanaagsanna la imanaya fiiri waxaa shardi looga dhigay maxay identityga qofka inuu garanayo waqaala inanii min almuslimiin qofka inuu odhanaya muslimna waa nahay sheegashadaas marka waalid uu ilmuhu sheeganayo qofku sheeganayo muslim inuu yahay waxa burburin kara waa bullinka wuxuuna ku bilowdaa iskuullada marka la geeyo waana arrin boqolkiiba 75 in ka badan waalidiinta maraykanka ay report gareeyeen in ilmahooda la bulli gareeyo cyber bullying marka laga hadlayo midda xagga baraha bulshada loo adeegsado daraasaddu waxay leedahay more than 58% konton iyo sideed in ka badan da'yarta dhalinyaradu waxay sheegeen inay victim u ahaayeen dhibane u ahaayeen bullying cyber bullyingka lagu sameeyey waxaa laga yaabaa muuqaal qaawan yaa ilmaha wejigiisii lagu dhejinaya iskuulka oo dhan baa isku diraya adigu ma ogid ilmuhu cidhiidhi buu kale marka fikir waa easy muuqaal qaawan gabadhaadii xijaabneed yaa muuqaal qaawan muuqaal xayawaana muuqaal saasa ayaa qoorta inta laga jaro iyaga lagu diraya laba ilmo isdhunkanayo meelaha laga keenay waa ilmahaaga wejigiisa la gelin karaa waa arrin khatara maxaynu u baahannahay inaynu ka hadalno inaynu wacyigelin ka samayno janaalkan waalid legacy sababtaan u samaynay
waa waalidku inay aqoon u yeeshaan maraaxisha carruurteennu ay wajahayaan iyo in wixii aan ku dhaanay xog aan siino mar kale ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu awlaaddeena xafido qodobada dambe waxaan kaga hadlaynaa qodobo muhiimsan sidaa darteed waalid fadlan saad u hesho subscribe dheh ehelka muslimiinta ana la wadaag jazaakum allahu khayr wassalaam Walid legacy, it shines so bright, a rising star in the endless night, from roots so deep to skies so high.